Ramadan Kareem kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo laba toddobaadkiiba hal mar aynu ku soo marti qaadi jirnay aqoon-yahan Cabdiladiif Ismaaciil Xaaji Muuse toddobaadkani barnaamijka xubinta aynu ku soo qaadan doonaa waa sirta ereyga iyo farqiga u dhaxeeya barnaamijkana magaciisa guud waa sirta ereyga Cabdiladiif ugu horreyntii barnaamijka mar kale waan kugu soo dhaweynayaa bal waxaan doonayaa qodobka koobaad inaynu ku soo qaadano dhanka Soomaalida marka laga hadlayo war iyo weecaal inaga oo marka hore dul istaagi doona sharaxooda inaga marka dambe u gudbi doona farqiga u dhaxeeya xasan oo aad baad maasan tahay sida aad soo sheegtay barnaamijkan wuxuu kamid yahay barnaamijyo hore aynu halkan hore ugu qabanay barnaamijkana maanta waxaynu ku magac darnay sida aad ugu baad ka dhawaajisay sirta ereyga iyo farqiga u dhaxeeya ereyada marka waxa jira ereyo fara badan oo Soomaalidu kuwaasoo erey kaliya ah ama ereyo laba isu haysta oo marka ay isku xidhan yihiin dadku hal macno u haysto se marka la kala macneeyo laba macno iyo macnayaal fara badan oo kala si oo howlgalo qaaray aan shaqo shaqulba isku lahayn ereyada bil mesela waxa kamida sida aad ugu baad marka u dhawaajinaysay war iyo wacaal war iyo wacaal fan iyo suugaan hiil iyo hoo dooc iyo dareen huud iyo hangaali ereyo fara badan oo saa u macna isugu xidhan oo laba isugu xidhan laakiin kala macna ah qaar isku macna noqonayaan ayaa bal maanta halkan waxaan ku sharaxnaa wixii aynu ka gaari karno sida ay u kala macna duwan yihiin ama isugu xidhan yihiin bil mesela kala hadii aan soo qaadano ereyga war iyo wacaal waa laba erey ka kooban tahay war iyo wacaal oo aynu oran karno war waa wixii qofku isagu uu war ka hayo ama uu soo taagnaa ee dhacdada uu ka warramayo ee laga wareysanayo wacaal aynu oran karnaba wixii dabada kaga yimi oo warku hadii jaraala labu noqday waxaad ka warhayso iyo wax lagu sheego waana labadina waana isku war waad moodo mawduucu marka aynu halkaas oo kale ka warramanay war iyo wacaal hadii aynu galay in aynu bal warkan maanta dunida saxaafadan iyo warkan aynu bal warka iyo macnihiisa guudna aynu gallo oo intaynaan warka u gelin guud ahaantiisana warku qaybo fara badan ayuu leeyahay warku wuxuu leeyahay war faxdin uu leeyahay war naxdin uu leeyahay war sheeku leeyahay war dheeli yuusuf uu leeyahay war taariikhiya buu leeyahay duniduna siyaabo fara badan ayay afafkeeda ugu warantaa inkastoo oo warka afka lagu warramayo warbaahinta la adeegsanayo iyo wakaaladahan iyo wararkan qodobada iyo xeerarka u yaala ay dadka afkoodii ay ku warrami jireen ay wax ka duudo oo Soomaalida kale sidii ay u warrami jirtay waxaad moodaa markii ay saxaafadii dunida iyo caynkan ku minantay in ay wax ka bedeshay warka inagoo aan hore u sii galaynin bal waxaan jecelahay in warku uu kala muhiimsan yahay aynu ka horeysino qodob warka ah oo muhiim ah horta ereyga war waa erey ama dadku news ay yiraahdaan afka Ingiriisiga ama Carabiga oo kale khabar hay yiraahdaan waa erey sida tan loo adeegsado warka qofka aadamaha ugu horeeyay ee dantiisa ahina intaynaan warkan iyo wacaashan iyo saxaafadan iyo wariyaha iyo warka aynaan xasan ku horeynin horta waa warka Ilaahay iyo warka rasuulka wariba waa ka oo kitaabka iyo sunnada waxa ku dhan wax allaale dunida intay soo bilaamatay ilaa inta ay dhamaanayso wixii war ku jiray sidoo kale waxa ku jira warkii aakhiro rabbina ayado badan iyo suurado badan sida uu kaga warramayo uu leeyahay fa bi ay hadiisin ba'dahu yu'minun quraan kan warkee ayaa dabadi rumayn lahaydeen afa min hada alhadiisi antum mudhinun ma warkiisan ayaa dhayalsanaysan oo dadku wararkii kale iyo adduunyadii baa loo yaacaya warkii quraanka iyo xadiiskii waa la dhayalsanaya sidoo kale rabbi suuratu wanajm isna wuxuu leeyahay afa min hada alhadiisi ta'jabun warkan biya la yaabatiin wa tadhakuna wala tabkun wa qoslasaan oo kuma ooyasaan wa antum saamidun fasjudu lillahi wa'budun warkaas oo kale markuu quraanku ka warramayo wuxuu leeyahay jaakum faasiqun binabayn fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin oo warka in la iska hubsado ayuu rabbi inoo sheegay leeyahay hadii uu idin yimaado mid faasiq war idin keeno oo qolo idinka keeno dabeetana akula ciirtaan waxaanay qoladaasi
xaq u lahayn fatusbixu ala ma facaltum naadimiin oo ay sheegayso walka rabbi ayada ku waramaya in warka laftiisa la iska hubsado meelo badan oo ereyga laftiga marka aynu raacno naba ama al hadiis aynu raacno quraanka dhamaantii iyo sunnadu waa war horta marka fariinta aynu diranay aynu leenahay dadku intaan warka kala wahalinin ayo war iyo wacaali iyo sirti ereyga yacinkan horta warka in lagu mitada ay tahay ee in la dhuuxa ay tahay ee rabbinayna leeyahay hadii adduunyada waxa leeyahay wala taclamunna nabaahu bacdahin waa garan doontaan oo jeer dama garan doontaan nabaahu bacdahin warkan uu quraanku sheegi doono marka warka in lagu mashquulo iyo in la baaro iyo in la raaco iyo in lagu tadabburo oo aflaa tadabbaruna alquraana am ala qulubin aqfaluha oo samcigeena iyo basirkeena iyo wixii oo dhan aynu adeegsanayna horta waa warka ilaahay iyo warka rasuulka hadii aynu xasanow inta wacdiga kaga nimaadno diiniga ah ereygiis sirta ereyga aynu ugu magac darnay ereyada isku ladhan war iyo wacaal sida aynu horeba halka hore ugu soo sharaxnay warku wuxuu lahaa qaybo fara badan oo war farxadeed buu lahaa war naxdineed buu lahaa war sheeko lahaa aynkan uu lahaa wararkii markii la isku soo xoriyay maanta hal war oo kaliya ayuu noqdo oo hal sifo oo kaliya ayaa looga waramaa warka ay maanta saxaafadaheena iyo wariyaasheenu badankooda ay hayaana hadiya jaraale mid taariikh badan ka tilmaama maaha ama se wuxuu u badan yahay warka dheeliga ah oo isaguna u sii badan warka qaybtiisa la yiraahdo war naxdineed oo warku wuxuu kala lahaa war naxdineed iyo war farxadeed war sheeko wixii oo dhan wax la isku soo ururiyay bil masalan magaalo aad joogto hadii 10 subaxood isku daga roobkada oo ama ay nabad ku waabarisato lama yiraahdo oo lagama soo warramo magaalada Hiblaayo oo nabad ku waabarisatay ama roobkada ay maalinta war ka dhaco ama la yiraahdo qalab ka dhacay ama hawlba ka dhacay ama dagaal ka dhacay waxa laala waxa saxaafada arlada joogta way isla soo taagaysa waxa la oranayaa meel Hiblaayo oo hawshaas ka dhacday oo waxa darkaysa in warkii dhinac kaliya uu ka reeran yahay meelaha uu warkii waxa galdaaca ka yeelanaya waxa kamida tacsiyo kala laga waramaya tacsida marka laga warrami jiray ee qofku guriga tacsida joogta ama uu cida qaraabadii uu ka geeriyado qofkaasi waxa loo warrami jiray loo oran jiray inta codka hoos loo dhigo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun niyu go'ay marxuumki dabeetana erayo ayaa lagu hadli jiray maanta halka darka in mikrofoonka sito isagoo indha libaax kugu soo eegaya ayuu xasano wuxuu oranayaa xaaji hebel oo ku geeriyooday magaalada Hiblaayo warkii kale iyo warkan tacsida sida uu akhriyay isaga macna uma dhaxeeyaan warkan ma wax naadineeba ma farxineedba isku si ayuu akhriyay qaybaheeda fara badan la adeegsaday ee TV-yada leh raadiyoyada leh ee jaraa'idada leh midiba nooc ayuu u soo warinaya laakiin isku noocaas ayaad moodaa xasanow inay u soo warinayaan waxa kamid ah nin baad arkaysaa qof baa bil masalan wuxuu go'ayaa labadii habeenimo qof habeenimad go'aya qof suxufiya baa dul taagnaa qofkaasi wuxuu ku jiraa social network qaybihiisa kala duwan wuxuu ku soo qorayaa waxa uu geeriyooday labadii iyo barkii iyo 3 mirid iyo 30 sekin waxaad moodaa inuu qofkan u hayay saacada halkii uu gunaanadi lahaa ee quraan ku akhri lahaa ee madax biyo ugu shugi lahaa ila qofkiisa karaatimoodkii baa hayay isagu waxa uu ka jecel yahay social waxa uu soo tabinayo ayuu ka jecel yahay ayuu ka jecel yahay dhinaca kale ee wareerka ka yeeshay waxa weeye warkii maanta bilka hor la duubay hadii aad maanta dhageysato raandis ma laha oo mar labaad ku bixin kartaa waxaad oranaysaa war naga qaada waa war la dhaafay warkuna haduu macna laha waxa yahay hadii lagu celiyo inuu de sameeyo wuu jira wareer dheeli bil masalan waxyaabaha wareer keenaya waxa kamid ah hadii lagu yiraahdo nin boqora ka soo waran xasanow nin boqora lagu yiraahdo ka soo waran ama madaxweyne ka soo waran oo aad tiraahdo wuu soo toosay wuu quraacda wuu qadeey wuu seexday oo aad war ka dhigto waa war laakiin waa war dheeli layfa oo qofkan inta uu nool yahay xasan de waxna uu cuni doona waanu seexan doona waanu soo toos doona laakiin warku waxa yahay maxaa uu naxdin ku soo kordhay maxaa war farxayna ku soo kordhay waxa laga yaabaa in sanadkii aad tiraahdo boqorka oo wiilugu dhashay oo lagu magac daray hebel ay gabadh u dhalatay boqorka oo gabadh guursaday warkii inaad sanadkii 2 war 3 war ama 4 waxaan ka badnayn aad hesho
laakiin ninkii wariye ahaa marka la yiraahdo maanta inta saxaafadaadii iyo maradaadii aad qaadato dheelin warkeen dheelin war dunida yaala oo qofkii soo helaya ma jiro marka dhalinyaradii marka aad moodo markii warkii iyo wacaashi ay caan ka ahaayeen ee saxaafadiina lala ay Soomaalidu ku biirtay ee ka qayb qaadatay xasano waa lagu simbiri dhaxday wallahi lagu simbiri dhaxday oo warkii wuxuu noqday ka dhinaca kaliya ka waramaya ereyga horta war iyo wacaal macnaha iyo farqiga u dhaxeeya horta waa inta ereyo kale oo iyaguna fara badan sida ay horeba soo tilmaamay ayaa xasan oo yana ayaa jira